barnaamijkii qisooyinka jacaylka oo toddobaadkan xiise gooniya xambaarsan haddaba daawade maxaa kala socotaa qisada jacaylka cusub ee musharaxii shilin ku reeba Shiina Coley iyo Naajo Caraale سوئيمتي نوركي هندها سوئيمتي ديانكي رجدا الله سوئيمتي جندي افكي اودي قلبي سوئيمتي دونتي راجعيل Naajo Caraale waa gabar YouTuberada waxay muddo raadinaysaa ciyaaryahan YouTuber ay ku badday isla baastan sida Shiina Coley laakiin nasiib darro waxay hore booska joogtada ugu weysay dhigeedii hore Idris la Cabdi oo haataba barihii sababtoo ahaa in inantan laga dhaxaqoodo garoomada caalamka gaar ahaan YouTube-ka inkastoo kulamo saaxiibtinimo oo branki lagu soo gabagabeeyay la yeelatay Kinsey K haddana barihii u dambeeyay waxay kali ku ahayd xarada tababarka ugu dambeyntiina waxay ku soo birtay naadigan uu hogaamiyay jabjabkii Shiina Coley oo ka dhisan magaalada Berlin ee dalka naaguhu niman kubadaha aqoon wax ma dhiibtaan waa nacas dhaga weyn kan dheesha garanayna kuma uma dhalaalshaan ninkan dhabalka dhalinayna arrinka xigmad Ilaahay u dhiibay farweyna ciyaaryahankan 40 jirka lagu qiyaasay daadiisa ayaana dhawaan ka soo kabtay fadeexada la xiriira burcadnimo kadib markii baraha bulshada lagu faafiyo codadkiisa kaas oo la maqlay isagoo ku dhawaaqay ereyo ay kamid yihiin taaj baan joogaa saadama IFC misoo gal Shiina Coley waa rugcada saxaafadeed oo reer mudaga waana afmal aad looga yaqaan baraha bulshada ay ku kulantay gaar ahaan kuwa Soomaalida aad ku jecel yihiin ee Facebook iyo YouTube koorintii uusan caruurtiisa ka soo qaadan wadankii hooyo ee Soomaaliya wuxuu ahaa wariye howlkar oo aad ugu firfircoon shaqada saxaafadda sida aan ka soo xigan saxafiyiin ay ka soo wada shaqeyn jireen telefishinka caalamiga ah oo cable kaas oo aysan dad badan rumaysan karin waraysiyo kala duwan oo qaaday xilliyada uu ku sugnaa xarunta maadaama dadka intooda badan ay ku barteen isagoo ka dhex doobinaya baraha bulshada Faysal Cali Waraabe oo isagoo horay ugu sugnaa magaalada Dubai labada mas'uulba waxay maanta goobjoog ka ahaayeen madashii lagu kala saxeeday heshiiska intaasi kadib musharaxii shilin ku reebay wuxuu ka mid noqday koox wariyaal magangalyo doon iska soo dhiibay dalka Germany iyo qaaradda Yurub wixii intaasi ka dambeeyana waxa uu barta uu ka degan yahay YouTube-ka ka samaystay maqaaxay ugu dambeyntii dabshida ka noqotay inanta lagu magacaabo Naajo Caraale oo iyada laftirkeeda baadi goob badan u gashay sidii mar un ay u babin lahayd digsiga jacaylka waqtiga badan dabka la saarna sida uu ku dambeyn doono xiriirka cusub ee Shiina Coley iyo Naajo Caraale waa sheeko kale oo baahan waqtigeeda la sugo laakiin dadka qiimeeya arrimaha jacaylka waxay qisadan u fasirteen heestii xasaada samatire ahayd xarig laaga badan wuxuu soo lismaba lafan baa ka hara xarig laaga badan wuxuu soo lismaba lafan baa ka hara naf jacayl loodi waayki ulid qaban lahaa guud ahaan barnaamijkeena qisooyinka jacaylka halka ay noo joogo